Israa'iil ayaa sheegtay in muwaadiniinteeda ay daawan karaan ciyaaraha adduunka ee ka dhacaya Qatar. Heshiiska oo yimid kadib wadahadallo bilo ah oo lala yeeshay xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa waxaa ku dhawaaqay 3 wasiir oo sare oo Israa'iil ah. Israa'iiliyiintu waxay awood u yeelan doonaan inay ka qayb galaan ciyaaraha koobka adduunka ee 2022 ee ka dhacaya Qatar ayay yiraahdeen wasiirada Israa'iil. Talaabo ay ku sheegeen inay albaab cusub u furayso waddanka Carabta oo aan hadda Israa'iil la lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah. Heshiiskan ayaa yimid kadib wadahadallo bilo ah oo lala yeeshay FIFA waxaana Khamiistii ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid, wasiirka difaaca Benny Gantz iyo wasiirka ciyaaraha Gilly Trober. Jacaylka kubadda cagta iyo isboortiga ayaa isku xira dadka iyo dowladaha. Koobka adduunka ee bisha November wuxuu noo furay albaab cusub oo aan ku heli karno xiriir diiran ayaa lagu yiri bayaanka Lapid. Qatar oo aan siin fiisaha dadka haysta baasaboorka Israa'iil ayaa isla markiiba ka hadlin sheegashada Israa'iil. Kooxda Israa'iil ayaa ku guuldareysatay inay u soo baxdo finalka. Qatar oo ah waddan yar balse qani ah ayaa martigelin doona koobka adduunka ee ugu horeeya Bariga Dhexe kaasoo bilaabanaya dhamaadka bisha November. Madaxda koobka adduunka ee Qatar ayaa marar badan ku celceliyay in dhammaan dalalka ay soo dhaweynayaan inta uu tartanka. Dhammaan dadka tikidhada haysta waa inay codsadaan kaarka la yiraahdo Haya oo ah aqoonsiga taageere kaas oo u dhigma sida fiisaha gelitaanka Qatar. Si ka duwan dalalka Khaliijka Carabta oo ay jaarka yihiin ee Bahrain iyo Imaaraadka Carabta oo dhawaan heshiisyo taariikhi ah la saxiixday Israa'iil, Qatar ayaa shuruud ah dhismaha dowlad Falastiin ku xirtay in ay xiriirka u dhaxeeya Qatar iyo Israa'iil si caadi ah uu ku soo noqdo.